ku soo dhawaada mar labaad channelka Entertainment Official. muuqaalkan quruxda badan leh maanta waxaan ka sheekeyn doonaa bisadii ugu cimriga dheereed. Haday tahay markii ugu horeysay fadlan subscribe saar. bisada Robel ayaa waxay la nooshahay haweeneyda reer Ingiriis ee Michelle Foster laga soo bilaabo bishii May 1988. sida ay qortay jirada Daily Star ee dalka Mareykanka ka soo baxda, bisadan ayaa dhawaan loo sameeyay xaflad gaar ah, waxaana loo keenay dhakhtar caafimaad oo si bilaash ah ku baaray caafimaadkeeda. waxaa xusid mudan in Nutmeg oo ahayd bisadii ugu cimriga dheereed adduunka ay bakhtiday sanadkii hore iyadoo ahayd Teddy Flower. waxay isku da'yihiin Skeeter oo jabisay Guinness Book of World Records. cimriga bisadan oo ka tirsan nooca Maine Coon ayaa waxa uu dhigmaa 137 cimriga bini'aadanka. Michelle oo ah haweeneyda bisadan xanaanaysa ayaa sheegtay inay tahay mid aad u qurux badan. inkastoo ay tiri xogo murugo leh ayaan ka arkaa da'deeda darteed. waxay hadalkayga sii raacisay waxay ii soo gashay markii aan 20 jir noqday, xilligaas oo ay yaray, laakiin weli firfircooni ayaan ka arkaa, aadna daacad ayay iigu tahay. Cream Puff oo bakhtiday 2005kii iyadoo 30 jir ah ayaa loo aqoonsaday inay tahay bisada ugu cimriga dheereed abid bisadaha adduunka. la soco barnaamijyada ku xiga, fadlan subscribe-ta, comment-ta, like-ta, intaba waa halkiina. haniga iloobina asxaabta sharafta leh.